Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa lama filaan. Waxyaabo si lama filaan ah isku waqti iyo goobo kala duwan uga dhacay. Muuqaalka markaan si fiican u dhex galno ayaa fahmi doontaan. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Waxay go'aansadeen mid kasta oo ka mid ah Animate iyo Nekwelok inta aanay isguursan inay fiiriyaan sawiradoodii yaraanta. Sawiradii ay fiirinayeen waxaa ka mid ahaa sawirkan. Sawirka waxaa ka dhex muuqda wiilka guursanaya gabadha oo fadhiya ciid dhex fadhiya god laga sameeyay ciid xeebta isagoo yar isaga iyo qoyskiisa. Laakiin gabadhu waxay ka dhex aragtay sawirkan sawirkeeda oo sawirka gadaal idinkaga muuqda waa gabadha la guursanaya sawirkeeda iyadoo yar. Waxaana lama filaan ku noqotay in isku waqti xilligaas ay yaryaraayeen labadooduba ay waqtigooda ku qaadanayeen isku xeeb iyagoo war isku hayn. Wariyeyaasha marmarka qaar oo ay diyaarinayaan barnaamijyada waxay ku qasbanaadaan inay bannaanka u baxaan oo ay makarafoonka dadka la dhex maraan. Laakiin ka waran haddii dadka aan makarafoonka la dhex maraydo ay weydiinaydo barnaamij uun qofka ugu soo horeeya uu noqdo qof ka mid a dadkii dhacdadaas sameeyey ama dhacdadaas ku jiray. Waxay ku dhacday arrinka wariyahan wuxuu wax ka weydiinayay dadka jidka maraya ciyaar dhex martay kooxda Everton iyo Liverpool oo classic ahayd. Ciyaartaasoo dhacday 1967 laakiin waxaa lama filaan ku noqotay in qofkii ugu horreeyay oo ciyaartaas wax ka weydiiyay uu noqday goolhayihii Liverpool ee xilligaas Tommy Lawrence. Whether you remember the Derby match in 1967 at Goodison, FA Cup, 5th round, and it was shown on a big screen at Anfield at the That's same right. time. Do you remember it? I do. I played in it. Did you? I was goalkeeper for Liverpool. Really? Yeah. Oh, well, that's a stroke of luck me meeting Very you. nice. Yeah, Yeah. sorry, can you remind me of your name? Tommy Lawrence. Laba qoys oo kala duwan oo Mareykan ah ayaa waxay kala qaateen laba cunug oo mataano ah labadaas oo walaalo ah. Labadaas oo ay dhinteen hooyadood iyo aabahood u agoontoomay iyagoo yaryar. Waxaase lama filaan noqotay labada qoys iyagoon is ogeyn inay mid walba oo walaalaha ka mid ah u bixiyeen Jamie. Labadoodana mid walba oo ka mid ah markuu weynaaday wuxuu bartay qaanuunka. Labadooduna waxay guursadeen laba dumar oo isku magacooduna waa Linda. Labadoodana mid walba oo ka mid ah islaantiisii waa uu furay. Sidoo kale waxay guursadeen laba dumar oo isku magaca waxaana lagu magacaabaa Betty. Labadooduna waxay leeyihiin carruur wiilal ah bis oo gabdho ma lahan. Labadooduna waxay ka shaqeeyaan ammaanka. Labadooduna waxay cabaan isku sigaar. Waxaasoo dhan marka ay dhacayaan walaaluhu waxba wara iskama hayaan oo si lama filaan ayay ku dhaceen. Markii ay weynaadeen ugu dambeyn labadooduba waa ay kulmeen. Inay doon ku qallibanto ama ay ku degto meel ka mid ah badda waa arrin mulugare laakiin waa arrin caadi oo inta badan dhaca. Laakiin waxaa la yaab leh in saddex doomood waqti kala duwan isku hal meel ay ku degaan oo ku qallimaan sidoo kalena isku waqti ay qallimaan sidoo kalena uu doon walba ka badbaado hal qof halka qofna uu hal magac wato yacni saddexda qof ay isku hal magac yihiin. Waana arrinka ku dhacay saddex doomood oo aan idiin soo sheegi doono. Sanadkii 1664 waxaa doon ku degtay xeebaha Wales. Doontaasna waxaa ka badbaaday hal qof waxaana lagu magacaabaa Haig Williams. Sidoo kale 120 sano kadib 1784 waxay isla xeebaha Wales ku degtay doon kale oo ku qallibantay. Doontaasna waxaa ku geeriyooday dhammaan dadkii waday. Waxayna qallibantay 5 Diseembar waxaana ka badbaaday hal qof waxaana lagu magacaabaa Haig Williams. 75 sano kadib 1859 waxaa isla xeebaha Wales ku degay doon yar. Doontaas oo wada 25 qof waxaana geeriyooday dhammaan dadkii saaraa markii laga reebo hal qof waxaana lagu magacaabaa Haig Williams. Waqtiga ay doontu degtayna waxay ahayd 5 Diseembar. Saddexda doomood mid ka mid ah waxay degtay 5 Diseembar yacni saddexdooduba mid walba oo ka midana waxay ku degtay xeebaha Wales. Mid walbana waxaa ka badbaaday hal qof oo lagu magacaabo Haig Williams. Dunida waxaa ku nool qof ku eg ugu yaraan hal qof ba Allah ka dhigay. Laakiin waxaa laga yaabaa inaad nasiib u hesho inaad la kulanto qofka ku eg sida ku dhacday labada nin oo Irishka ah. Labada nin oo Irishka waxay ku kulmeen diyaarad ay labadooduba ku safrayeen. Labadooduna aad iyo aad ayay isugu eg yihiin. Sidoo kalena waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa dadka isku eg Enzo Ferrari iyo Mas'uud Ozil. Enzo Ferrari waa ninka aasaasay shirkadda Ferrari ee baabuurta tartamada sameeyda ee Talyaaniga laga leeyahay. Enzo waxay aad iyo aad isugu eg yihiin laacibkii hore ee Arsenal iyo xulka qaranka Germany Mas'uud Ozil oo hadda u ciyaara kooxda Fenerbahce. Mas'uud Ozil wuxuu dhashay 1988 waana isla waqtigii uu geeriyooday Enzo Ferrari.
muuqaalkeeni maanta inta ayuu ku egyahay haddii ay tahay markii ugu horreeyay oo soo boqoto channelka halmaamin inaad subscribe saarto muuqaalkana aad like garaydo siina share garay oo asxaabtaada la wadaag asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu